أنا وعن كم ذا ورياشي إذا عد الراديو مقدشو كشقين جري حلقي دولتي هوري الصوماليا مقعي وحلي هذا سعيد آذن علي سعيد أنتينا اللي يرهدا وعنا كشقين هاي راديو مقدشو أيامي وقدمي دولتي الصوماليا أي بربوريسي وعن جوغي توس وجوغي إذا عد الراديو مقدشو إيو حفيزك مدحويناك الله نحرسته محمد سياد بري وعن جعلها مركا تطفر بدن ودنيا دعالة ذا كلا دوان جوغا أيها يسوي عيي أيامها كانوا دن وعين الربينين وحكوا قادان دلكي لايي ورياشي راديو مقدشو iyadoo dilkaasi uu geystay ninka la yiraahdo taakay hadda la soo dhigay facebookyada ku jira oo la leeyahay 4 naagood buu guursaday magaciisana bedelay oo Sufyaan la baxay waan markii hore u taaseenaya eheladii ay dadkaasi wariyaashaas ay ka dhinteen oo la laayay waan markaa idin bayaaninayaa ninkan sababta uu dilay dadkan ma ahayn wax qabiil la xiriira arintu waxay ku la xiriirtay idaacadda radio muqdisho ayuu rabay inuu ninku ka shaqeeyo wuxuuna kamid ahaa askartii mataqaana meesha timi oo la socotay generaal maxamed faarax aydiid allah u naxariiste wuxuu jeclaystay inuu idaacadda ka shaqeeyo dad baa marka waxay ku yiraahdeen sida aan waan maqlay inta nimankaani joogaan niyo waxba noqon maysan waa inaad nimanka iska hor leexisa masala basiida buu ku dilay ilaahay naxariistina ka waraabay raggaas uu laayay way kala duwanaayeen waxa kamid ahaa Abuukar Maxamed Nuur Abuukar wariya la oran jiray nin fiican buu ahaa sheekhaal buu ahaa waxaan anigu isdiidsiinaya qabiil inaan afkayga ka sheego يعني وأنا مستحيل بيناتنا قبل سوغال لكن ما أنت وحنو شيء إن أنت كالصومالية عبديو وحكر سيدي أهايين نكا مركل للدلي أبوكر محمد نور وهو هانين شيخال أبوها نكا كلا ودلي وحال ورنجري إلهي نحرس جنو أكورابيه عبد القادر علي إدلي أقاسمو أها إذا عدر يدي مقدشوا عبد القادر علي إدلي waxa isaguna uu ka soo jeeda beesha xawaalaha la yiraahdo xawaalu ka soo jeeda waxa kamid ah dadka uu laayay ninkaani mahad aadan baa kamid ahaa xasan mahad aadan xasan wuxuu ahaa reerka la yiraahdo ugaadeen buu ahaa cabdi sheekh ali ayaa isaguna kamid ahaa cabdi sheekh ali wuxuu ahaa nimanka la yiraahdo Arab Saalax ama reerka Arab Saalax la yiraahdo ayuu ahaa waxa kamid ah ninka la yiraahdo Cabdi Xange waa nin isaguna wariyay idaacadda radio Muqdisho waxayna walaal rasmi ahaayeen Abdul Qaadir Juula oo isaguna ka tirsanaa jiray radio Muqdisho ninkaas ayuu la walaalaha ninkaas Allahu naxariisto raggaas shanta isaga ayaa dilay ninkaas magacyada bedelanaya oo marna Abu Sufyaan baan ayle hada sida lagu helay ku soo baxay waliga islaama heleen Allah subhanahu wa ta'ala sareeyay ilaahay baa ka shafay waayo xaq islaameed iyo dad islaameed buu dilay rabbi waa soo saar isaga baa iskaanay oo doodii ila ku soo istaagay oo inuu gabdho Soomaaliyeed masaakiina afar hal mar wada meersado oo ma taqaana ismuujiyo oo isagoo la baxay Sufyaan oo isu akaysiinaya muslim isu akaysiin dhigi abwey dad buu laayay masaakiin buu laayay rag wariyaala aan waxba galabsan buu laayay yani wax weyn buu galay jariimad buu galay isaguna sahli ciyaar iyo nimankan way iga cod fiican yihiin iyo nimankan intay joogan anigu wax noqon maayo buu ku dilay
markaasuu maanta soo istaagay oo maanta Soomaali wuxuu sheegaya aan leeyahay maxkamadda loo keeno shareecada islaamku ay qabtana sida qabtana ha loo dhaqmo ninkaas